بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت هالكن وحنا نوفر لنا وسارة بيرها ما ده هالكن فرددا إن نسجوتينه أفرد النيرة أو أن سيني الدولة الصومالية أي سي دق وحبرشة ودبدأ أو فول سكولرشيبا أما لكفر جري للضبولي qarashka ay wax ku baranayaan iyo kay ku degananayaan mudada ay jaamacada ku jiraan iyo kay wax ku noolaanayaan noloshooda ku nool yihiin la dawladda Soomaaliyeed ay bixisay afarta dhalinyarada oo ka kala socda saddex ay ka socdaan maamul goboleedyada dalka Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Jubbaland qofna uu ka socdo wasaaradda federaalka afarta dhalinyarada inaanu sagootino maanta halkan kula dardaarano waxbarasho aad iyo aad u qiimo badan oo sida aan sheegay dawladda Soomaaliyeed ay mas'uuliyaddeeda qaadatay ku tagay dalka Zimbabwe oo ay ku taalo jaamacad beeraha cilmiga lagu barto cilmiga beeraha oo aad iyo aad u qiimo badan ay afarta dhalinyaro tagi doonaan waxay baranayaan wax la dhaho plant breeding iyo biotechnology ayay baran doonaan oo cilmi beeraha aad muhiim ugu ah haddii af Soomaali aan isku dayo dhalinroga dhirta iyo barashada unugyada ay ka samaysan yihiin dhirtu ayay baran doonaan cilmi halkan aad loogu baahan yahay waxa sharaf noo ah inay halkan fadhiyaan labadan oday sawira halkan waxa fadhiya laba oday oo cilmiga ayaguna dibadda u tagay burburkii dawladnimadeena ka hor maanta waxaanu diraynaa 34 sano kadib afartii qof ee ugu horeeyay labadan nin oo midna isagoo markaa ka soo noqday deeqdii waxbarashada dawladdu siisay ay qamti dhacday midna isagoo ku maqan ay dhacday baanu 34 sano kadib maanta waxaanu diraynaa afar dhalinyaro ah oo cilmigii ay xilliga barteen mid lamida ka soo baranaya jaamacad qiimo badan oo ay ku heli doonaan waxbarasho iyo practice ka sareysa tadalkeena maanta ka jirta ay jaamacad weyn ay heli doonaan hambalyo ayaan leeyahay afarta dhalinyarada waxaan u rajaynayaa khayr iyo cilmigaas loo dooray aanu runtii aadka qiimaha u badan inay si fiican uga soo faa'iideystaan waxaan ku faraxsanahay sida aan sheegay wasaaradda ahaan inaanu burburkii kadib dhalinyaradii ugu horeysay diri doono bilaha soo socda iyo sanadaha soo socdana waxaanu diri doonaa tiro kale inta aad uga badan oo jaamacada waaweyn oo adduunka ah loo diri doono waxay haysan doonaan garantiin shaqo markay soo noqdaan waayo cilmigoodu cilmi aad iyo aad loogu baahan yahay weeye shaqadoodu waa 100% ayay noqon doontaa afartooduba waxay ku yimaadeen tartan adag bay ku yimaadeen oo wasaaraddu qabatay kuma imaan waxay ku yimaadeen aqoontooda oo ay dad kula soo tartameen annaguna sidaasaan encourage gareyn doonaa wixii hadda ka dambeeyay iyo mar walba inaanu u aqsoorno oo cilmigu shaqeeyo aqoontu shaqeyso qofku dadaalka uu la yimaado tartan haday shaqo noqoto iyo haday waxbarasho noqoto uu tartan ku guuleysto waxyaalaha ummadda Soomaaliyeed dhulka wareejiso dawladda ay jirto maybe bini'aadamka oo dhan dad xun ku jiri karaa laakiin anagu kama shaqeyno waxaas waxaan ka shaqeynaa cadaalad qof habar jeclaay kuma jiro miya ku jira may kuma jiro marka cadaalad baan ka shaqeynaa dadka inaynu xaqsoonaan ka shaqeynaa waxaan aaminsanahay inaan ahay mas'uul Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed oo dhan halkaan u fadhiyo oo ay u siman yihiin aqoonta iyo waxbarashada ayaanu taageeraynaa qofka isu soo bixiya maaragtay tartanada aanu qabanayno ku guuleysan karaan taageeraynaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaanu ku marti qaadaynaa marka ugu horeysa inay ku soo biiraan waliba faculty-ka beeraha bartay inay cilmigooda siyaadiyaan maanta cilmigu si easy ayaa lagu heli karaa internetku ku jira aqoontaada waad saa'idi kartaa waxa la dhahaa macallinku waa ku sareeyaa cilmiga laakiin adiga ayaa laga rabaa inaad meel isgaarsiiso waxaanu samaynaynaa oo nagu ku tala jirnaa inaan samayno dhisno dhalinyarada beeraha ku jirta shirkii fawaan hadda tagay adduunka waxa laga keenay boqolaal kuma ilaa 1000 arday dhalinyaro ah oo beeraha ku taxalluqa oo horumar ka sameeyay oo smart agriculture sameeyay oo technology beeraha lagu horumarinayo sameeyay oo adduunka gaaray inay Roma ay adduunka la hadlaan gaaray
annaku innovative kaas ayaanu ka shaqaynayna hal abuurka beerahan ka shaqaynayna ay hoob inuu jiro arbacada halkan uu ka jiro bandhig dhalinyarada beeraha ku wanaagsan ayaa ka jiri doona arbacada wasaaradda oo aanu rabno inaan ku xidhno dhalinyarada adduunka marka arintaa lagu dadaalo waxaan u mahad celinaynaa dabcan dawladdu had iyo jeer waxay kaashanaysaa beesha caalamka waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda maaliyadda oo nagala shaqaysay arintan mashruuca SCRB World Bank oo runtii nagala qayb qaatay arintan inaanu dhalinyarada qiimaha badan maanta halkan ku sagootinay cilmiga helaan ayaanu u mahad celinaynaa adduunyada walaalaha iyaga na taageerta sidaan sheegay mashruuca SCRB iyo World Bank fursado kale badanna waanu soo wadnaa insha Allah taala hanbaliyo aad ba u mahadsantii